meel kastiyo adduunyada wada maro mas'uuliga noqo damiin fariiniga qaadmiina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله كلن كسوق يقولي يوم أبوانك ما أنت مستدعي الله وين يسوي وينيا ما أنت وحين وجودنا مالين تلوات تطوات كأبان كسومالدا ومارتي مالين باي مسوق بندقيني قيب كمدا waxyaalaha ummad ahaan aynu dhaqanka u leenahay shalayto oo isniinahay waxay ahayd maalintii inu soo bandhignay cunooyinka soomaalidu ay tahay dhaqanka u leedahay ama asal ahaan soomaalidu macnaha ay iyagu maaragtay dhaqankooda ama cuno ahaan ay iyagu leeyihiin maasha allah si fiican bay u dhacday maanta waa maalin kale oo aynu jaanib kale oo dhaqanka soomaalida aynu soo bandhigayno maanta waxaa laga hadlayaa maaragtay mawaadiic kala duwan oo kulligoodba ku taxalluqa macaamalka iyo maaragtay waxyaalihii soomaalidii hore iyo soomaalida maantaba weli aasaaska u ah barnaamijka wuxuu ka koobnaan doonaa marka dhowr qaybood qaybta horeyso hadda uu maaragtay insha allah soo geli doona walaal ismaaciil mubaarak wuxuu ka hadli doonaa suugaanta soomaalida iyo qaybaheeda isagoo markaana maaragtay qaybo kamid a suugaanta maaragtay insha allah soo bandhigi doona insha allahu tacaala suugaantuna waxay kamid tahay soomaalida hore waxyaalaha aynu aada loogu ammaani jiray oo khaasatan gabayada iyo noocyadooda kala duwan insha allahu tacaala marka soo dhawaada waxaan rajeynayaa inay maaragtay laga faa'iido oo aynu maaragtay dhaqankeena markaynu barano ayaynu maaragtay ummadaha kalena wax la qaybsan karnaa qof ama ummad aan dhaqankeeda haysan ummad kale waxba ma tari kardho saa darteed insha allah waxaan rajeynaynaa in generationka dhalinta yar ama halkan ku dhasha ama ku koray ay bal taariikh ahaan baaraan oo bartaan dhaqankoodii iyo wixii hore maaragtay dadkay kasoo jeedaan waxyaalaha lagu yaqaano lagu tixgelin jiray insha allah waa idinku dheereeyey ismaaciil tafadal. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بام هذا له يا مرلباتك وحنو مهد عليا وراها صومالي ليتو برنامج كان دقيقة وصابسن isku soo dubahiday runtii waana hawl bulshada Soomaaliyeed oo dhan u taala oo in aynu dhaqankeennii iyo luqadeennii ilaashano waa arrin aad iyo aad u muhiim ah oo waliba si gaar ah u taabanaysa dadkeena qurbaha jooga dhaqanka marka laga hadlayo kolley suugaantu waxyaabaha lafdhabarka u ah ayay ka mid tahay suugaanta culinteeda kolley dhinaca diinta culimadu waa ka hadleen waxaa la yidhi imaamu shaafici baa la weydiiyey markaa wuxuu yidhi suugaantu waa hadal un oo hadalka kiisa xunina waa xumaan kiisa wanaagsanina waa wanaag suugaanta marka la qeexayo kolley siday abwaanadu uga hadlaan waxay tilmaamaan in waayadii hore macnayaal kala duwan loo yaqaanay macnayaasha waxaa ka mid ah bay dhahdaan hadhuurka ama midhaha oo kale garowga marka la tumo inta budada ah ee soo hadha waxaa la odhan jiray baa la yidhi suugaan waxaa kale oo loo yaqaanay saxan-saxada roobka ka soo horeysa iyadana waa lagu tilmaamay in loo yaqaanay suugaan waxaa kale oo la sheegay in suugaanta la odhan jiray roobku markuu soo doo naqa ugu horeeya uu soo saaro doogga ah ee cagaaran ayaa suugaan la odhan jiray laakiin xilliyadan dambe suugaan waxaa kolley ay caan ku noqotay ama dadka suugaanta ku dhex jiray iyo abwaanadu ay isula yaqaaneen wixii la curiyo la tiriyo siduu abwaankiiba yidhi abwaankii gabyayey
waa kii lahaa suugaanta gabay maalintan sadar ka sheegayo weligay ma saranseeriyo waan susubiyaa. marka suugaantu way qaybo badnayd. qaybaheedii waxaa ka mid ahaa gabaygaa ka mid ah, geeraarkii baa ka mid ah, shiribkii, jiiftadii, buraanburkii, maahmaahdii iyo sarbeebtii iyo qaybo kale oo badan. suugaanta waxyaabaha la yidhaahdo waa loo adeegsan jiray ee bulshadeennan yani soomaalidii ay u isticmaali jirtay. laba waxbaa ugu waaweyn baa la yidhahdaa. oo arrinta koowaad waxay ahayd yani wartibin, warkaa la isku gaadhsiin jiray maadaama waayadii hore aanay warbaahini jirin. waxaa kale oo la yidhaahdaa waxay ahayd kayd, yani lagu kaydiyo dhacdooyinka dhacaya ee bulshada soo mara. taana waa loo adeegsan jiray. suugaantu qaybaheeda kala duwan waxaa ka mid ahaa hees hawleedyadii baa ka mid ahaa, sida heestii geela oo kale marka la caraabinayo ama la daaqgeynayo ama la waraabinayo oo kale. waxaa ka mid ahayd heesihii carruurta lagu maaweelin jiray, ama markuu ilmuhu ooyo oo kale lagu seexinayo, ama marka ilmuhu gaajoodo oo kale lagu sasabayo. hees carruureeda baa ka mid ahaa. waxaa ka mid ahayd heeso yani carruurta oo kale ay iyaga laftoodu isku maaweelin jireen oo ay ku ciyaari jireen ayaa ka mid ahaa. hees hawleedda waxaa ka mid ahayd marka yani midhaha la tumayo oo kale, heesaha yani loo qaado ama loo adeegsaday hawsha la isku dhaafiyo, ama haanta oo kale marka la lulayo. dhammaantood waxay noqonayeen hees hawleed. mid walbana waxay leedahay yani bad ama siiqo gaara. oo kolley bugaag baa laga qoray oo intaanu waan garanaya ilaa 2 buug oo la yidhaahdo miisaanka maansada soomaaliyeed, oo yani qaybaha kala duwan mid walba miisaankay leedahay. oo gabaygii, geeraarkii, hees hawleedyadan mid walba waxay leedahay miisaan gaara. oo abwaanadaas cilmi baadhay ee yani miisaankeeda soo saaray, oo weliba la yidhahdo ilaa adigu dhowr iyo 70-adii meelahaas ayay daraaseeyeen. yani wixii isku godba maaha. mid walba waxay leedahay god gaara, oo qaarkood kolley waxay tiriyeen oo godadkeeda ay ku fadhiisiiyeen shaqalada, sida xarfahan a e ida iyo od iyo uda. xarfahaasaa la tirinayaa. waxaa laga yaabaa beydkii gabayga oo kale hadduu noqdo ilaa 20 shaqal, iyo meeriska labaad waa 20 saas ku soconay. de abwaanku markuu curinayo ma tirinaye, oo wax ilaahay subxaana watacaala ku ilhaameeyey oo hibe u siiyo isagu uu tirinayaa un. laakiin tirintan uu tirinayo ayuu ku garanayaa halka yani miisaanku ka qalloocanayo iyo inuu saxan yahay. marka waxa yani ciddaa cilmi baadhay unbaa ogaatay xisaabtana waxaana ku soconaya. markaa suugaantu yani saasay u qaybo badan tahay. runtii qoraalkeeduna dee waayadii horena waynu ognahay oo aada buu u yaraa. imikana waxbaa la qorqoray oo sidii hore waa la dhaamaa. laakiin way u baahan tahay in yani la daraaseeyo oo la qoro oo la kaydiyo. waayo waxay xambaarsantahay waa dhinacii, maadaama dadkeenu dad dee muslima ahaa, diinteenii bay yani xambaarsan tahay oo aan suugaantii ka maqnayn. hadday gabaya tahay iyo hadday mahmaha tahayba dhinaca kolley taban way leedahay, dhinac togan oo badanna way leedahay. oo yani afkii baabay dee weel u tahay oo kayd u tahay. marka ilaalin bay u baahan tahay. weliba dee intan qurbaha lasoo galay, dadkan qurbaha aada kolley u dareemaya taasoo
يعني دائرتي waxaa laga yaabaa in inta la yiraahdo Soomaaliga garanaysaa af Soomaaligood iska galab yahay inana de aanay garanayn ba aqoon ba u lahayn gabay afka hooyo ku saabsan ayaan curiyay gabaygaasi waxa uu tilmaamayaa da'yartii iyo sida ay afkeedii hooyo ugu liitaan ama aanay yani aqoonta ugu lahayn oo garanaynin iyo muhiimadda afku leeyahay marka gabaygan iska bilaabanayna insha Allah gabayga magaciisa waxa la yiraahdaa afka hooyo kolley waa la iska fahmayaa oo abwaan Soomaaliyeed baa waxa laga hayay gabay markaa tirinayso dadka waxba loo hambeeyaa oo si dadku iyagu yani u macnaystaan oo ay maaragtay u baarbaadhaan gabaygu wuxuu leeyahay inta hore waxa uu ka hadlayaa yani afka hooyo ama afkeena Soomaaliga iyo muhiimadda uu leeyahay waxa uu yiri adduunkan ku noolahay dhammaan afarta geesoodba Afrika iyo Australia ilaa Aasiya halkay tahay America iyo Yurub iyo wixii uunka dad u jooga qolo waliba af bay leedahay oo lagu ogsoonaayay waana aayad Rabbi oo ku tusi alla awoodii sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku tilmaamay yani kala duwanaanta afafku waa aayad yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala jiritaankiisa ku tusaysa waana aayad Rabbi oo ku tusi alla awoodii ummad waliba luuqdeeda way ku istareexdaaye way ilaashataa dhowrataa aad u xafidaaye af yaqaano iyo gabayaa ayay ugu ergeysaaye ararta iyo maansada ayay ood uga dhigtaaye afsaar bay u samaysaan cid kale orad ku dhaafayne aqal bay u yagleeshaa dhammaan agabku buuxaaye irday ku joojaan wixii aafa soo gala innagana afkeeni hadduu iishay oo jabaye Ingiriis Talyaani iyo Faransi baa ilay waa hore halka yani waxaan uga jeedaa markii yani waddankeeni dawladaha shisheeye yimaadeen Ingiriiskii iyo Talyaanigii iyo Faransiiskii iyo wax badan baa luqadii isbedelay oo yani luqadaha kale ee ajnabigii ay yani booskoodii galeen imika ka sii daray markii loo adduun baxay inanka iyo hooyadii ayaa loo afciliyay aabaha iyo cunuga ayaa weeri soo aqoonay yani waxa la sheegaa carruurtii yani qurbaa ku dhalatay qaarkood in isaga iyo waalidkii aan isaf garanayno loo kala turjumayo marka afcilintu yani waa turjumidii adeegsiga kelmadaha ilmihii waxaanu saxayn erey la sheegay adeegsiga kelmadaha ku daran oo adayg badane af Soomaaliga wixii ugu yaraa waa ama kaaga ina ayaa tahdii lagu dhaw waa u jeed kale halka waxaan uga jeedaa ina ayaa tahdii lagu dhaw waa u jeed kale maalin baan yani niman odayaal masaajidka jooga ayaa u sheekaysanayeen markaas waxay yiraahdeen carruurta yar yani af Soomaaliga halay ka joogaan haddaad ku tiraahdo ina ayaa tahdii ku garanayo dawladda baa weydiiyay oo ku magacaayo markaas uu yiri magacaygu waa caynkaas oo ina ayaa tahay maxaad uga jeedaa ina ayaa tahay haddii lagu dhawo ujeed kale aniga iyo adigaanu garan wuxuu yiraahdaa isaga iyo iyadu qaldaa kii dhadiga ahaaye idinka iyo annaga iyo iyagu waa aqoon leeyahay aan fariir ayaa ka dhacay magacyaalkii yani aniga adiga innaga iyaga ayaanu kala garanaynin aqraabta iyo riximkaanu sixin inuu ekeeyahay aabba iyo hooyo walaal qoys soo ahaada abti iyo adeer iyo awow ama ayeeyooyin eedda iyo habaryar iyo aayo eheladaada oo dhan ilmaha bal wadaagiya in abti ama ilma adeero oday sodoga iyo waliba oriya walaalo afa ku dumaashiyay iyo seediga inana inuu kala gartaaba ku daran inuu kala gartaaba ku adag waayaan darre yani inta abtigii iyo adeerkii iyo awowgii iyo habaryarkii yani ma kala garanayo maadaama uu af Soomaaliga baan aqoon u lahayn hadduu ubadku luqadda ka tago
waa abdala-aane ummaddiiyo dadkiisay markaa kala irdhoobaane adhigana midkii baadiyay eedu mirataaye arrin weeye halisoon cidina ka asaraanayne waa aafataadoo qofnaba aanu inkirayne bulsho weliba afkeeday dhabtii ku intifaacdaaye aqoon-yahankiiyo culimada fasara aayadaha diinta afka hooyo weeyaan waxaad oon kaga baxdaaye yacni qofku wuxuu culimadiisa ayuunbu luuqad ahaan oo si saxa u fahmi karaa oo sida ilaahayba subxaana watacaala qur-aankiisa inagu sheegay wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qawmihi liyubayina lahum markaa yacni wuxuu wax ku fahmaya waa luuqadiisa un si dhaba wuxuu wax ugu fahmi karaa markaa gabaygaasina waa magaciisa waxa la dhahdaa afka hooyo waana baraarujin uun yacni afka iyo ilaalintiisa ku saabsan isaguna halkaas ayuu inagu dhanyahay runtii waxaan mar labaad mahad celinayaa walaalaha Somali Media barnaamijkan isu soo dubariday oo maaragtay aad iyo aad u ah barnaamij muhiim ah oo loo baahan yahay in yacni lagaga daydo lana sii wado oo la soo celceliyo waana mahadsantihiin هو إسماعيل ومحسن runtiina arrin muhiim oo dee aasaaska oo dee maaragtay marka laga hadlayo sugaan dee afkii asal u tahay marka afkii iyo muhiimadday leedahay weliba dadka dhalinyarada ah waddamadan ku koray si gaara dadkii waaweynaaye maaragtay anigu aan ku jiray ee dalka yimid 30 sano marka laga soo marnaa Soomaaliga laftiga aan ku hadalno waa xadidaya iskada dadka meesha ku dhashay sababtoo erayo badan oo aan fiilan laga isticmaalno waagaan aan nimid naqaaniba haddii lowna mararka qaarkood markaan erayo aan maqlaan markaasaan idhahdaa ereygan Soomaaliga ku jiray marka aad buu u mahadsan yahay insha allah qofkii su-aalo weydiinaya waa weydiinaya aniga waxaan weydiin lahaa kulley abwaanka inta badan waxaa laga hadlaa suugaanta qaybaheeda kala duwan awaan hebel baa tirihin marka suurtagal ma tahay qofku inuu abwaan noqon karo mise waa waxun dee wax walba horta qofku uu haysto waa hibe ilaahay laakiin ninka raba inuu abwaan noqdo ma inuu iska isugo dee dhaxalka hidahaas maaragtay hadiyadaas ilaahay xaggiisa ka imaatay uu iska sugaa mise waa wax waddo loo maro abwaan lagu noqdan jirta bismillah runtii waa su-aal aada muhiim ah kolley aniga aragtidayda suugaantu yacni way leedahay yacni dariiq loo raaco oo imika halkan bugaagtan laga qoray ee miisaanka maansada ka hadlaysa yacni qofku hadduu daraaseeyo gabaygii ama maansadii ama yacni badaha kala duwan ee suugaanta mid walba qaabka ay u socoto maadaamo ay ku qoran yihiin bugaagtaasi gabayga ama jiiftada ama geeraarka mid walba wasnigii iyo miisaankii uu ku fadhiyey oo xisaabsan oo god weliba ama meeris weliba intii uu ku soconayay ay meeshii ku qoran tahay waxaan filayaa qofku haddii uu yacni daraasaadkaas oo kale uu aada u eego oo u dhuuxo sugaantiina wax badan ka hayo oo uu ka yaqaano oo sugaantii iyo gabayadii la tiriyey uu garanayo aqoon u leeyahay iyo kolley uu isku dayi karaa laakiin number 1 waa hibo ilaahay bixiyo oo dee qofka yacni ilaahay hibada u siiyey waxaan filayaa qaabka yacni u tirinayo daraasiin la daraasiyo laguma tirin karo marka number 1 ta koobaad waa hibe ilaahay subxaana watacaala bixiyo ta labaad qofku haddii uu daraasiyana waa laga yaabaa inuu wax curin karo baydad isu geyn karo masha allah ay su-aal qabto kale ma jirtaa waxaan weydiin lahaa ku luqeynta gabayada in hadda sii dhamaanayaan moodaa hadda gabay qiimo badan u tiriyay laakiin odayaasha hore siiqay u tirin jireen
laga gudbay siiqooyinkii loo tirin jiray mise alaabta hoyaalaye alaabta saas loo qaadqaadi jiray hadda inta dambe abwaanin badan oo xikmad badan oo adigu ku jirtid si caadi u tiriyaan mataqaanaa marka alaabtaas ma laga gudbay mise isbedelaa dhacay ku-celiyoodka lagana dhow markii la duubaya ama waqadaas laakiin su-aasha lagu kor weydiiyey gabayada waayada hore habka loogu luuqay jiray hoyaale iyo waxa lamidka maalmahan dambe rag badan oo gabaya ah oo gabayada tirinaya si maaragtay sida hadda baasfacaad u tiriyay oo kale oo hadal ahaan oo maaragtay si waan ugu luuqaynin marka arrintaasu wuxuu leeyahay hawshaas ma laga gudbay mise asalkasta maxay ku dhisantaa arrinta luuqayntu iyo maaragtay ku luuqaynta gabayga abwaanadu kolley waa run abwaanada hore badankoodu way ku luuqayn jireen gabayga laakiin abwaanadan dambe rag ku luuqeeyaa way jiraan laakiin intooda badani kuma luuqeeyaan waxaan isleeyahay waxaa keenaya malaaberigii hore gabayga iyo suugaanta la curiyo dadku aad buu u xiisayn jiray aqoon badanna oo dadku u lahaa oo abwaanka isagoo ku luuqeynaya ayaa gabaygiisii si fiican loo fahmay laakiin intan dambe waxaad moodaa maadaama luuqadda lafteedii af soomaaliga ahayd uu maaragtay cidhiiri badani galay inaan dadku haddii lagu luuqeeyo gabaygii oo si cad loo tirinaya laga yaabaa qof inaan bulshadii in badan oo ka midi aanay aad ba u fahmin marka waxa unbaa keenaya baan isleeyahay abwaanadan dambe gabaygii unbuu rabaa inuu si waadixa dadkii ugu fahmo taasaa keentay inaan luuqdii aad maaragtay xoogga loo saarin oo maaragtay gabaygu u bato gabay si caadiya loo tirinayo oo lagu luuqeynay لكن مثل الدليل هي نفتي سواء صدق ولا لو أخذيه كلا أبوان هو كله والله لو قين كلا وهذا اللغة أصلا سواء لو بدل كلا أو كله لو قين بس أسمع والله بدل كلا السؤال لازم إن شاء الله وحنقول بتنا قيت الوقت إن شاء الله البرنامج كمان إن شاء الله adduunyada wada maro mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaad muhiima